dalxiisa u dhashay Israa'iil ayaa laga tarxiilay Turkiga kadib markii uu soo shaabaxay muuqaal uu diif isaga tirayo lacagta wadankaas sida ay ku warantay warbaahinta dalkaasi Turkiga. ninkan oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Nadar Bandara ahna Carab haysta dhalashada Israa'iil ayaa la arkay isagoo sankiisa ku nadiifinaya 20 liiraha xilli uu ku sugnaa maqaayad ku taala Istanbul. muuqaalka ayaa lagu baahiyay baraha bulshada ee Turkiga sida ay ku warantay wargeyska Turkish Independent leerado. laamaha ammaanka Turkiga ayaa jamcihii gacanta ku dhigay Maxamed waxa ayna ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay astaan qaran sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ah. sabtidii ayaa la sheegay in Turkigu uu ninkaasi u tarxiilay Israa'iil hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa sheegtay in Maxamed uu weli ku xiran yahay Turkiga oo uu ku sugayo maxkamadayn. wararka qaar ayaa sheegay in dalxiisuhu uu doonayay inuu ku maadeysto hoos u dhac ku yimid lacagta Turkiga oo saameyn xoog leh uu ku yeeshay sicir bararka dalkaasi ka taagan tan iyo markii uu dilaacay caabuqa COVID-19. xiriirka diblomaasiyadeed ee Turkiga iyo Israa'iil ayaa sanadihii la soo dhaafo ahaa mid yara hooseeya waxa uuna madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu hadallo kulul ku weerari jiray ra'iisul wasaarihii xilka ka degay ee Yuhuudda Benjamin Netanyahu. dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa rumaysan in xukuumadda cusub ee Israa'iil ay fursad u noqon karto Ankara isla markaana ay labada wadan si buuxda caadi ugu soo celin karaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee halaabay. la taliye ka tirsan madaxtooyada Turkiga ayaa horaantii sanadan sheegay in labada wadan ay ku dhow yihiin inay dib u soo celiyaan safaaradahoodii ay muddo ka hor kala rarteen.